nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhaahdeen in madaxa loo xiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen daba yuu nagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana marba timaha laga xiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhaahdeen wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xal mooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruhu ha madhaan dawladuhu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax xalka u raaco dadku markay isqabtaan saddex heer mid unbay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho التنازل عن الحقوق oo waa maxay waa waxa la yidhaahdaa cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurtogelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaqoo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhaha islaaxu daati اlbayn aw الsulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaan ba ha isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo sulxiga alimaam ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyay sulxigu aqsaam buu u qaybsamaa waa sulxu lmuslimi maca alkaafir buu leeyay gaal iyo muslim in la heshiisiinayo ama guri in la heshiisiinayo islaan iyo odaygeedii in la heshiisiinayo sulxu bayna zawjayn ama imaamka muslimka ah iyo fiqo baaqiyo ku baxday in la heshiisiinayo dowlad iyo jabhad dowladdii sharciga ahayd shareecadu ogolayd iyo dad ka baxay oo ama qabiila ama jabhada ama waxay doonaana in la heshiisiinayo bay leeyihiin sulxigu wuxuu kaloo dhici karaa fi ljaraaxaat in qisaasta lagaa cafiyo oo maal lagu bedelo dilkii laga daayo maga lagaa qaato waa nooc min sulxiga ka mid a gacantii lagu goyn lahaa ama ishii lagaa ridi lahaa qofkaad ka riday uu ka tanaasulo oo maal uu ku beddesho waxaa kaloo sulxiga la yidhaahdaa khusuumaadka dadku isku hayaane kale ee xoolo leh ee waddooyin leh ee baabkaa leh nisaaca in la dhammeeyo haddaba fuqahada kutubtooda intaad aragto baabu sulxiga waa mucaamalaadka u dambeeya ama sulxiga muslimiinta iyo kufaarka udhexeeya baabulhudna bay kaga hadlaan sulxiga imaamka iyo buqaadda udhexeeya kitaabulbuqaat bay kaga hadlaan sulxiga zawjaynka udhexeeya kitaabulqasmi wanushuus bay kaga hadlaan idan kutubulfiqi markaad aragto baabu sulxigu abwaab iyo kutub tiro badan oo kale nooca ayuu ku jira laakiin innagu waxaynu ka warramaynaa isagoo isku duuduuban isagoo dhammaantiiya in dadka la heshiisiiyo ama gaal iyo muslim ha noqoto ama dowladda iyo inta ka soo horjeedda ha noqoto ama oday iyo islaanti iyo ishaya ha noqdo
ama qabaa'il isdilay iyo jamaacaad iyo kooxo isdilay ha noqoto dadka in heshiis laga dhex raadiya sulxigaas shareecadu wayna faraysaa majaalaadka iyo mayaadiintiisaasi waxaa ka mid a ka ilaahay qur-aanka ku leeyahay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada waa kii guriga hadday haweenay ninkeeda inuu ka tago ama ka jeesto ama isla weyni ka dareento falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa dhibi korkooda ma ahaan inay heshiiyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala inay heshiiyaan oo isu tanaasulaan oo waxyaabihii laysku hayay wax ka mid ah laysaga tanaasulo waxa laysaga tanaasulayaa waa maxay waa bacd alxuquuq waa xuquuqdii wax ka mida qofku inuu ka tanaasulo oo dabeetana meel dhexa la isugu yimaado ilaahay markaasi wuxuu leeyahy wasulxu khayr waar heshiiskaa khayrku ku jiraa baa ilaahay yidhi haddana ilaahay wuxuu sii daba dhigay wauxdirat ilanfusu shux naftana bakhaylnimadaa lagu xaadiriyey baa ilaahay yidhi bini aadamku waa waxaygii xaqaygii buu taagan yahi laakiin waa manzilo loo baahanya inaad ka korto qofku markuu garaad iyo caqli yeesho ayuu waa waxayagii un haddaad taagnaato waa beertaydii waa dhulkaygii waa waddankaygii waa dowladnimadii waa waxaygii un haddaad taagnaato way adag tahay inay bini aadamka heshiisaan laakiin nooc min atanaasulaat bini aadamku inuu isu dhimriyo ilaahay wuxuu leeyahay nafta bini aadamka asalkeeda waxaa ah waa uxdirat ilanfusu shuxa bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo waa waxaygiidu way ku xaadirsantay laakiin maxaa la yidhi wain tuxsinuu watattaquu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira haddaa ixsaan samaysaan ixsaanku waa atanaasul can bacdi alxuquuq cadaaladuna waa inaad waxaaga hesho haddaad ixsaan samaysaan oo alla ka cabsataan ilaahay waxaa samaynaysaan waa arkaya idan waxaa la leeyahay guryuhu qaanuun haddii la yidhaahdo ha lagu dhiso keliya dhisbaba maayaan hadday islaantuna tidhahdo waxaan xaq u leeyo o dhan weyn halkaa la dhigaa odayguna yidhahdo waxaan xuquuq leeyo o dhan weyn halkaa la dhigaa labadaasi wada noolaan maayaan gurigaasi wuu dumayaa gurigu muxuu ku dhisan yihi attanaasul odayguna waxyaabaha qaarkood inuu indhaa ka laabto faa'iidooyin badan oo kale wiilan ku qabaaye islaantuna waxyaabaha qaarkood inay indhaa ka laabato faa'iidooyin badan oo kale ayay ku qabtaaye laakiin hadduu qof waliba yidhahdo waxaygii soo taago waa adkaanaysaa idan sulxigu ilaahay wuxuu ina leeyahay war inaa islaax dhexdiinna raadisaan dhibi kuma jirta baa ilaahay leeyahay sulxigaana khayrku ku jiraa baa ilaahay leeyahay sulxiga ayaa khayrku ku jira falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana gafuura raxiima nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalin buu soo dhaqaaqay dabeetana gurigii inantiisii u yimi faatima markaasuu cali ka waayey cali xagguu qabtay baa la yidhi ayna ibnu camik